haddaba yacni dadka karaamaadka lagu irsaaqay ee wanaagsanaa ee daraja istiqaamadana darajada ugu sarraysa ka gaaray waxaa ka mid ah wa miman kaana calaa haadihi alxaala dadkii yacni wanaaggaas weyn la siiyey ee yacni lagu irsaaqay karaamadaas waxaa ka mid ahaa sayidunaa saciid ibnu jubayr ninkii taabicigaa saciid ibnu jubayr la odhan jiray radia allahu tacaala canhu xukiya waxaa la wariyey ana alxajaaj binu yuusuf ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray ee dhibka badnaa ee dadlayska ahaa caamalahu allaahu bima yastaxiquhu irshad ilaahay ha kula mucaamaloodo wixii uu mutaystay ninkaas wuxuu mutaystay uun in la cadaabo weeye xaga ummaddii buu eber ka dhigay asxaabu rasuulillahi iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa o dhan buu laayay lamaa balaqahu markuu soo gaaray amru hada sayid ninkaanu saciid binu jubayr markii loo sheegay arsala ilayhi qaa'idan nin buu u diray ciidan wato yusamaa lagu magacaabo almutalamis binu laxwas wa macahu 20 rajulan 20 nin buu yidhi wado min ahli shaam min khaasati asxaabihi dadkii uu ku kalsoonaa ah raadiyu ninkaa meelu jiraba soo qabta saciid binu jubayrna wuu iskaga carray oo meelaha duurku iska galayba markaasay raadinayaan duurkaasay ka raadinayan ayagoo daydayayo yaa waxay soo mareen nin yacni suufi ahoo nasaar ahoo meel sawmicaa ku jiro sawmicadiisii isaga jiro fasa'aluu canhu way weydiiyeen ninkaasaan doonaynaa nin yacni saciid binu jubayr la yidhaahdo ma aragta markaasuu wuxuu ku yidhi bal sifeeye see u egyahay way u tilmaameen markaasuu wuxuu yidhi war halkaasuu joogaaye ninkaas cibaadada badan soo maaha meeshaa ka raadiya fandalaquu way tageen fawajaduuhu saajidan yunaaji biaclaa sawti asagoo ilaahay la munaajoonayo sujuud ku jiray u tagay markaasay u dhowaaday way salaameenoo waka markaasuu markuu salaaddii buu taam yeelay markuu salaaddii ka baxay ayuu salaamtii ka radiyey faqaaluu lahu waxay u yidhaahdeen arsalana alxajaaju ilayk xajaaj baa noo soo kaadireeya fa ajiibhu ajiiboo na keende qaala wuxuu yidhi walaabudda min alijaabati waa lagama maarmaya inaan u taga miyaa waa lagama maarmaan miyaa qaaluu waxay yidhahdeen laabudda ilaa waa inaa u tagto waana la soo diray dee qasab baana looga dhigay inaan ku keenno meelaad joogto فxamid allaha ilaahay buu mahadiyey waatnaa calayhi wuu ammaanay wasallaa calaa nabiyi moxamed sala allahu calayh wasalam uma qaama wuu istaagay famashaa macahu wuu raacay xata intahaa ilaa dayri raahibi ninkii suufiga ahay oo soo tilmaamay bay mareen faqaala raahibu wuxuu yidhi yaa macshara alfursaan asabtum saaxibakum ninkii saaxiibkiina waa soo hesheen miya aad doonayseen qaaluu waxay yidhahdeen nacam faqaala lahum wuxuu yidhi oo meeshay rabaan inay caawo baryaan oo berri ka sii baxaan wuxuu yidhi iscadu dayra war guriga kor u soo fuula fa ina alubuwata iyo walasada ya'wiyaani xawla dayr habeenkii markii la gaaro gobolku dhaco guriga dhinacyihiisa waxaa soo dhoobanayay libaax yacni lubuwada waxaa layaha goosha asadkuna waa libaaxi aarka hawa marka halkan libaaxyo fara badan baa soo dhanay oo gool iyo aarki iyo wixii o dhan baa soo wada fadhiisanaye guriga soo gala libaaxu yuusa idin dil intuuna gabalku dhicin soo gala guriga fafacaluu dalika kulligood gurigii bay ku carareen wa abaa saciid an yadkula dayr anugu ma galayo guriga banaankan aan iska joogay saciid binu jubayr waa diid faqaaluu lahu waxay u yidhahdeen maa naraaka ilaa turiidu alharaba mina waxaad rabtaa banaankaan seexan intaad tiraada inaad caawa naga dhuumato soo mahad cararto yaa rabtaa saciidow qaala wuxuu yidhi laa ma cararayo walaakin laa adkhulu ma gelayo manzila mushrikin abadan gaal gurigii anigu ma galayo halkan aan iska joogaya mana cararayo idinkama cararayo aniga qaaluu waxay yidhahdeen fa innaa laa nadacuka annagu kaa tegi mayno fa ina sibaaca taqtuluka haddii haddaad gaalka iyo maseenkaaga tagnaadee waa meeshan libaaxyaa soo dhoobanayaan libaaxaa ku cunaye qaala saciid wuxuu yidhi inna macii rabbii war aniga rabbigay baa ila jiro yasrifuhaa canii ilaahay baa iga iilaye oo wax iga waarideeyeyna ilaahay baa ii yeelaya wax dhibaato ay gaari maayaan horta iska xarooda guriga iska gala seexda adigu qaaluu waxay yidhahdeen afa anta min alambiyaa oo markiisaa lagu ilaalinaya ma nabi baa taadu qaala wuxuu yidhi maa ana min alambiyaa anigu nebiyada ka mid ma ihi ambiyada ka mid ma ihi walaakinii cabdun addoon baanahay min cabiidillahi ilaahay addoomihiisa ka mid a khaadi'un oo gebsan oo mudnibun oo weliba dembiile ahoo dembi galay marka ilaahay baa ilaalinaya addoon baan ahay fa qaaluu waxay yidhahdeen ixlif lanaa loo dhaaro alla annaka laa tabrax inaadan meeshaa ka tegaynin noo dhaaro fa xalafa lahu wuu u dhaartay inaanan meeshaan ka dhaqaaqayni maan wallahi idinkugu dhaaranayaabu wa cinda daalika buu qaala lahum araahib wuxuu yidhi way ka tageen marka gurigay ku carareen war bal adinku guriga soo galo oo yacni marxaban wa awtaru lqisiya litanfiru ay sibaacu inay cararto
guriga intaad soo gashaan bahal dawan la yidhaahdo ay awtaarta yaan dhawaajinaysaa dhow ka siiya bal ninkaan hadduu diiday inuu guriga soo galo bal inuu ka cararo yani libaaxu uu ka cararo waay yani inuu libaaxu cuno ayaan ka yaabaya ninkaan bahal guriga bay iskaga xaroodeen bahalka dawankii la yeeri la garaac waay waxba libaaxi waabaka iska socdo markiiba iyadoo la dhowrayaba gooshii baa soo baxday libaaxa moodtay sida badan gooshaa hor kacdo waay goosha ayaa hor kacdo marka gooshi baa soo baxdayba say usoo socotay marxaban falamaa danad min saciid markay usoo dhowaatay tamasaxad bih uma rabad intay sidaas yani u taabatay bay agtiisa iska fadhiisatay agtiisa hayayba iska fadhiisatay markaasaa haddana waxaa soo baxay aarkii baa soo baxay fa sanaca mila dalika asagana saas buu u taabtay ku riigtay markaasuu agtiisa iska fadhiistay waay waxa yeelayo maaha falamaa ra'a raahibu daalika markuu arkay oo wa asbaxuu ay waa beriisteen sidii baa waaga ugu baryay saciid oo meeshii buu isaga cibaadaysanayey halkaa libaaxiina siduu u agfa fadhiya subxii libaaxi waa iska tegey waa iska galbaday subxii buu soo baxay marka ninkii raahibka ahaa baa soo degay wuxuu yidhi waniyow nin wanaagsan oo ehlu khayr haa tahay bal diintiina nabigiina lagu soo dejiyey bal iiga warran bal ee rasuulkaaga sunnooyinkiisa iiga warran fa fasara lahu saciid daalika wuu u fasiray fa aslama raahibu ninkii raahibkaa meeshiiba ku islaamay wa xasuna islaamuhu wa aqbala alqowmu baa soo qaabilay ilaa saciid qoladii lasoo diray xajaaj uu soo diray baa saciid yani soo qaabilay yactadiruuna ayagoo u cudur daaranaya wa yuqabiluuna yadayhi wa rijlayhi gacmaha iyo lugahay ka dhunkanaya wa ya'khuduuna turaaba yani aturaaba aladii wadi'ahu bileyl habeenkii meesha waxaa loo dhan ku tukanaya bay carradiisaa uga soo qaadanaya markaasay wejiga marsanaya way barakaysanaya lugaha iyo gacmahay ka dhunkanaya niyahow annaga haddee khiyaar ma lihin ninkaad ogeyd baana soo diray haddaan ku keeni weynana annaga unbu kurka naga jiraya ee adiga annaga maaha waxa ku wadno haddaan moodayna saan kumaana soo doonayn aya haddana wuuna dhaariyey oo dalaaq buu nagu dhaariyey nin walbow naagtaada ku dhaaro haddaad aragta ninkaa inaad ka soo tegay naagtu inay kaa furantay ku dhaaroy dhibbadnidiisa mogta waa nin dhib badan bu xajaaj ay qofku dee wax uuna yeeli karin buu ku qabanaya fiiri ku dhaaranaya dalaaq buu nagu dhaariyey marka niyaho noo cudurdaaro haddii umar kolleyba kaas hadduu un kuu geynana un ku dili way ogyihin inuu dili ilaahay agtiisa bal yani inaan ku beri noqono ilaahay agtiisa bal xujo inay noo noqoto annagu waxba kuman dembiga annaga ma nihin waa kan ictidaar bay samay waxaas waxba maahe wuxuu yidhi na keena aya anugu wuxuu ilaahay ii qadaray kama cararayo qadarka ilaahay na keena waxaan iska dhaaf ay may soo socdeeno magaaladii xajaaj uu deganaa baa lasoo galay aya magaaladii waa xajaaj marka magaaladii lasoo gelayo oo habeenkii la hoyanayo ayuu wuxuu yidhi nimayo waxaan arkaa buu yidhi in ajalkaygu soo xaadiray ajalkaygiiba horta soo xaadiray buu marka wuxuu yidhi caawa farta iga qaada ay uhbatal mowt yacni caawa waxaan qaadanayaa mowdkaan u sahay qaadanayaae qabriga iyo meesha cidladahaydoo la iseexinayey ayaan xusuusanayaae munkar iyo nakiir su-aashoodii baan xusuusanayaae marka caawo yani iska kaydaaye oo ballanku waa noo berri qaarkood baa yidhahdeen dee amaad noo imaan weydaa mid ayaga ka mid aha wuxuu yidhi anaa idiin ballan qaadaya farta ka qaada ninkaa soo ninkaa taqaaneen maha saalixa markaasay direen subxii meesha aan ku ballaminahay sheega gurigaa noogu imo subxi markuu waagu beriyo asagii baa albaabka kusoo garacay gow waa kumo saaxiibkiin weeye waa saciid aad baa loo yaabay markii bay soo kaceenoo xajaaj binu yuusuf baa loo keenay xajaaj binu yuusuf ninkii multamis ahaa ee yani ciidanka watay baa usoo galay markaasu wuxuu ugu bishaareeyey saciid baan wadnaa buu yihi saciid binu jubayr waa wadnaa halkaa lasoo istaajiyey saciid binu jubayr markuu hortiisa lasoo istaajiyey wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf masmuka magacaa qaala wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr baa la yidhaha buui qaala wuxuu yidhi xajaaj anta shaqiy binu kasiir saciid binu jubayr laguma dhehee shaqi binu kasiir baa lagu dhahaa buui ya hadalxumada meesha ka bilaabay fiiri shaqi baa tahay buu yidhi oo saciidkii magacii buu ka bedelayaa jubayrkiina macnaa kasiir buu ku bedelay shaqi binu kasiir baa lagu qaala wuxuu yidhi saciid ummii hooyaday yaa kaanad ahaatay aclamu mid kaa ogoo bismii magacayga minka adiga qaala wuxuu yidhi xajaaj binu yuusuf shaqiita anta wa shaqiyat ummuka adiga iyo hooyadaaba waad ur darsateen buu laba ehlu naar baa tiin laba ehlu naar qaala wuxuu yidhi saciid algaybu qaybka yaclamuhu hayruka yacni qofkaan inuu naar geli doono iyo inuu janno geli doono waa shay qaybahe moogta qaybka adiga kayrkaabaa yaqaano buri ilaahay baa og wey qaybka ad waxba kama ogid waxaa noqon doona aniga hooyada waxba kama ogid wey
ثم قال له الحجاج بوحوجري لأبدلنك وأن بدلي بالدنيا الدنيا وحن كوكو بدلي النار لضع الدنيا أنا أتكون نوشاي وأن كاوض ياي وحن كوكو بدلي النار يعني لضعهد قال وحوجري سعيد لو علمت هدان وقال لها أن ذلك بيدك إن هذه يعني النار تعضو أدقعنت كوهيسو لاتخذتك إلها إله بمكادق الله أبو قال وحوجري آيه حجاج فما قولك في محمد محاضر هذا بالكور قال وحوجري سعيد نبي الرحمة وي قال وحوجري حجاج فما قولك في علي بالكور رنبوري هل هو في الجنة أم في النار علي ما جنته كجرا مثل النار كجرا قال وحوجري سعيد لو دخلتهما جنة النار تهدان قلي لها أو عرفت أهلهما ددك كجرا أن صارك لها عرفت وأنا قنصل لها من فيه ما ددك كجرا وأن كالوغان لها وأنا كوشيك لها لكن أنا جنة النار ما قلبي ددك كجرا كما وروا ددك كجرا ما شاد وعبك ما أبي قال وحر فما قولك في خلفاء الراشدين محل قال وحر سعيد لست عليهم بوكيل أنا وكيل كما يهيبي قال وحر فأيهم أعجب آية إليك كاد أوجع عشاء قال وحر أرضاهم لخالقي متك إلهي أورالك كي هيوي يعني أوجع لها متك هاي أرضاهم متك أورالك بدنه لخالقي خالقي أورالك قال وحر فأيهم أرضى للخالق كي إلهي حقيس أورالك بدنه إلهي أوجع عليه قال وحر سعيد علم ذلك كاس علم جيسو عند الذي يعلم سرهم ونجواهم آية متك الله وجع لا الله أورالك بدنا متك يعني أحد كي سرته يعني ظاهر كذا بقى أي علم جاسوك قال وحور حجاج فما بالك لا تضحك محال لقسلين وهذه أن قسلين قال وحور سعيد بن جبير أيضحك مخلوق مياه قسلاي مقصل باوبنا أن خلق من الدين دوبا لقى أبوري والدين دوبدنا يأكله نار تعونيس قال وحور فما لنا نضحك أنقوا أن قسلين محان ودع مركز وانسقط لنا نوي قال وحور سعيد بن جبير لم تستوي القلوب قلوبتي إني أنا قاقم لم تستوي القلوب وحبا منا قرنين وي معناها هذه قلوبتي إنه وحقرت منا قصشين ثم أمر الحجاج وحو أمر باللؤلؤية والزبرجتية والياقوتي فوضع بين يدي سعيد وح الله وحي جوهر يلول وحي قروح بناي ودنا والدنيا بهيستني مدحوا هاي هل كان صور دقا سعيد بالا صور دقا فقال له سعيد وحويري إن كنت جمعت هذا وحن كل مسي لتفتدي به من فزع يوم القيامة قيامها أرقق حيثوين ينحدين تيسئنا سقفرته فصالح ووحو نفسه وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا خير في شيء جمع من الدنيا إلا ما طاب وزكى وهي حلاله في عنه يعني وحكى الخير من ثم دعا الحجاج وحويري بآلات اللهوي وحلا وحي يعني موسى كذا دربانك يا بلايد اللي وقع راعي جرو رمبو هذا هلا كان فبكى سعيد فقال الحجاج وحيري ويلك يا سعيد ما حد له أي قتلة تريد أن أقتلك سيتربط أين أنكودله بل دور نوعي أنكودل لها دور هذه سيتربط أي قتلة تريد أن أقتلك قال وحيري سعيد اختر لنفسك النفط هذا أدور يا حجاج فوالله بانكو دارتي لا تقتلني إمدش قتلة هي أتدلت إلا قتلك الله إلهي باكو دلي مثلها أيضا وكلا في الآخرة نوعي أديد سوم بعدين آخر اللي قد اليوم والقو عذابي ونوعي بالقو عذابي قال وحيري يعني حجاج أفتريد أن أعفو عنك ما إن أنكو عفيا ربطا قال وحيري سعيد إن كان العفو آية فمن الله آية إن كان العفو عفيقه آية فمن الله إلهي حقي سهدوية وان ربا وأما أنت أديك فلا أديك حقا وحفيون كان ربا مجو وحفيون كادوني قال وحيري اذهبوا به وضعوا فاقتلوه دلع ايش اللي تاغيين مركز الدلع كركا كغوي فلما خرج من الباب كمركي لغا ساراي ضحيك وو قسلي سعيد فاخبر الحجاج با لو شيغي بذلك وو قسلا لسعيد فامر بردي سو عليبو فقال وحيري ما اضحكك ما كا قسلي قال وحيري سعيد عجبت وحان لا يابني من جراءتك اديك ديرنده على الله اد كو ديرنيسو iyo وحلم الله عليك الهي سو كوغو دول قادنay ما الارك قف مؤمن اد كسو قبن واد مريدو إلهي سبحانه وتعالى كار دوريا وكود القادنيا بالفير وحان لا يابني جراءته iyo إلهي حلميgiisan la yaabanayo فأمر بالنضع فبصد بين يديه هل كانوا يركسوا مقاركي بهل ندع هرك ويلالس بالي مقارك هل كان كسو غوغل وددك ku gowrici jir meesha xajaaj hortiisa saa loogu soo goglay aye وقال وحي اقتلوه دلا فقال سعيد وحي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا آية وما أنا من المشركين آية ذات أخرى وجهت وجهي وأنجهي بوري وجهي للذي فضل السماوات والأرض حنيفا حالا يمد إلينا وما أنا من المشركين قال وحي الحجاج وجهوه لغير القبلة حق قبلة كالجهدية حق وسي جهدية قال سعيد وحي فأينما تولوا فثم وجه الله الله ما يشهد وجه سدبه فثم هل كاسوا هاي ثم يعني هاي وجه الله أي قبلة الله فقال سعيد وحيري أي كبوه لوجه أفكر لك أقلية يعني ما القبلة بها وجه دنع بها وجه دنينه هوس وجه يعني أبكي لك وجه أمرك هلكا كجورع فقال سعيد وحيري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هذه أرض حق الوجه دي بس دوكا آية منها خلقناكم أرض أمان إنك أبورني وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مركلا لبعضنا ولا إذا كسوا بعينيا فقال الحجاج وحيد اذبحوه جورع أحلى كرا يماه جورع مركز ماشي لمن فقال سعيد وحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال وحيد سعيد اللهم لا تسلط على أحد يقتله بعدي أحد ذنبه وأنيق قداش إله يوها كوس الله ذنبه من كان مجرم كان وين أحد أنيق ذنبه يا إله يوها كوس الله فذبح سعيد ولا جورعي على النضع بالو جورعي آية فكانت رأسه مدعي سوحوها بعد قدعها مركي لقوية تقول مثل هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدحي كل جيوان كل جيبا توحيسنا يمركي أنت لقوية هلك وخدعي يتوحيسنا ياو وعاش الحجاج ونولا بعد قتلي 15 يوما سنة تنبري كلي وكدم بيو آية وذلك في سنة 95 يعني سقاشن يسنتي به وكان عمر سعيد وهو 49 سنة فرتن يسقال سنجري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه آكل آية